Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib asxaabta qiimaha iyo qaayaha lahow, waxaan ahay Maxamed Xirsi. Maanta waxaan muuqaalkan idinku tusi doonaa sida Camtasia Studio loogu duubo screen recording. Screen recording micnaheedu waxay tahay computerkan aad u jeedaan oo aad isticmaalayo in shaashadiisa la duubo. Haddaba sida u duubtid Camtasia Studio soo kacso, markaad soo kacsatid waxaad heli doontaa meeshan aniga aad tagay maahan, sidan ayaa ka heli doontaa Camtasia Studio. Kadib waxaad dooranaysaa screen recording. Markaa screen recording dooratid, wuxuu kuu sameynayaa shaashada ayuu ku duubayaa, waxaana kuu soo baxaysa sidan markay kuu soo baxdo, halkan waxaa kasoo bixi doono calaamad gaduudan oo star ah. waa bilaabi doontaa. Aniga hadda horey ayaa u sameynayay screen recording, waana midka cashirkan idinku duubayo. Markuu kuu soo baxo calaamadaas gaduuda star ayaa leedahay. Muuqaalkan wixii aad rabtid ayaa ku sameyn kartaa, softwareka rabtid ayaad furi kartaa. Kadib hadda aniga Camtasia Studio ayaa furayaa. waxaa kale meesha kaloo ka heli kartid markaa kasoo tago dhinacaas, waxaa waa in aadid halkan oo ay ku qoran tahay recording the screen, inaad ku dhufatid ayaa iyadana lagu sameyn karaa. Marka aad sidaas u duubeysid oo muuqaalkaaga duubistiisa ay socoto, waxaa sameyn kartaa, waa joojin kartaa muuqaalkaas, waa iska deleedin kartaa, pause waa dhihi kartaa, amase produce ayaa ku sameyn kartaa oo muuqaalka waa soo saari kartaa. dhib kale ma lahan, waa intaasoo keliya. Markaad start dhahdid kadib inta wax kugu soo baxaayo codka, intana wax kugu soo baxayo durationka oo videoga socdo, kan hoosa iska soo dhigi kartaa, dhulkan uu ku yaali karaa. Markaa rabtid oo muuqaalkaaga aad dhamaysatid ayaa halkan check siinaysaa oo furaysaa. Kadibna waxaa leedahay stop marka aad videoga dhamaysid. Marka aad rabin muuqaalka inaad save gareysid asi dhan baa nacday, delete ayaa leedahay. Marka aad rabtid qof kale inaad la hadashid ama hawl kale aad soo qabsatid, stop ayaa leedahay. Halkanna waa meesha muuqaalka laga joojiyo asi dhanba oo la dhaho muuqaalkan waa soo saarayaa kadib markaa stop dhahdid, wuxuu ku saari doonaa shaashadan. Markuu shaashadan ku soo saaro, waxaad leedahay save and edit meesha ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Kadib waxaa ku soo baxaya meel magac lagu qorayo, magac ayaa ka bedelaysaa. Kadibna save ayaa leedahay. Kadib waxa uu kuu soo furi doonaa shaashadan aad u jeedaan oo ah meesha hawsha laga qabta editingka. Kadib hawshaada editingka ayaa qabsanaysaa. Kadibna produce video ayaa leedahay. waa intaasoo keliya sida screen recording looga sameeyo Camtasia Studio. waa mahadsantihiin, waxaana rajeynayaa inuu cashirkan idin anfacay. cashirka xigay ayaa inoo balana. adinkuuna subscribe iyo like iyo share intaba aad ka hilmaamin channelka. mahadsanidin.